الله الرحمن الرحيم magacay waa Farxaan Maxamed Xuseen oo Liibiya walaalayaal ku dhibaataysan walaal waxaan si naxariis leh ka codsanayaa dhammaan saxaafadda iyo dalkayga hooyo dhammaan telefishinada Home Cable TV ugu horeeyo waxaan ka baryayaa walaal inay warkayga gaarsiiyaan dhammaan dalka Soomaaliland ugu horeeyo madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi runtii aan markii Muuse Biixi Cabdi la dooranay baan dalkayga hooyo ka soo baxay carruurnimo iyo dhalinyarnimo ay soo kaxaysay runtii wax dalkayga hooyo iga maqnaa ma jirin aan ka waayay jirin maanta aanay waxaan ku dhibaataysanay Liibiya nin cadawga gacantayga haysto Liibiyana lacag bay gaar ah lacag $8,000 abay hooyada tanana ma hayaan marka walaal waxaan dhammaan ummadda muslimiinta ka baryayaa inay walaal meeshan sida nooga saari kartaan nooga saartaan imika halka waxaan ku joognaa 12 Soomaaliya oo dadkii sanadiyo ka ugu yar sanadiyo xogaaba ku jira meeshan dadkii nala socday 300 oo qof baan ahay 300 qof 12 kaas ka soo haray dadkii galaar maanta Yurub ka wada quraaceen Yurub ka wada cashaynayaan aanay maanta qaar ba Yurub ka sheekeynaya wax Liibiya ku arimay jirta nin kastaba xaafadooda ka saartay iyo ummadii dalkooda muhiimadda aan soo daadago walaalahay waxaan ka baryaynaa inaad meeshan naga soo saartaan ifka walaal wax la isku yahay aakhira in wax la isku maaha marka walaalahay aan isku anoo 12 kayaga bal isku tagaray Soomaaliland iyo cid kasta Soomaaliyaba daliya dibadba qolqoljoog iyo qurbajoog waxaan ka baryaynaa in meeshan si inuu uga bixilay walaalayaal falowgeeda gashaan intaasan ku soo koobay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu leeyahay Xamdi Cabdiraxmaan oo nahay gabar Soomaaliyeed da'deedana tahay 14 jir waxaan leeyahay walaal Soomaaliyeed la soo caaway meeshan ku dhibaataysanay gabdho walaal waxaan ku joognaa 5 gabdhood oo walaal meesha ku dhibaataysan xataa gabarnimadooda laga ciyaaray baan nahay waxaan leenahay soo caawiyo aniga shakhsi ahaantayda hooyadii kaliya aabahay u dhintay hooyadii kaliya hooyadayna xamaasato iyadoo xamaasato waxaan la cusisay way jirtay xamaasato waxaan leenahay dad Soomaaliyeed oo soo caawiyo wana barina soo caawiyo labada qof meesha ku dhibaataysan baan nahay soo caawiyo lana jibdil bay nagu hayaan حساسيات بنا دميسين كل بسان نوع أنت دبعت والله إلههم بنا أركاي وحنا لنا الصاعة والصوماليو بسم الله الرحمن الرحيم والله وحنا لنا مقعد عيان حسب مقعد عيان لها لو وحنا شغال يبيع وحنا شغال ده زد بلوغان شوغا ستيد بلوغان شوغا وحنا شغال بستيد بلوغا ولا معن كل القفون السوق الضمن عيان هاي وقلب والدي فكسو لا فكسو نفتي فكسو عيانها وصوتها ربتي